بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذ لهانتين خيارته وذا إنك دقيسانيساي واسديد ياللباتنك بش جولاي ياللبكن ياللباتن قضبدا وركها بنيمو الراديو مركب ليعا وقدور كورونا وحاكمدا وزير حمزة أو شيغي إن قسارو نفيد اي كدشين دبيلو كدفتي حيبها دالكا قسارو كدشي اسكو دعيو دحمري بنام بحيال iyo booliska Garowe siyaha ra'iisul wasaaraha oo kormeeray dekada Muqdisho beesha caalamka oo warka soo saartay doorashooyinka iyo shirkadu Samareeb wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo fasaxday shaqaalaha dawladda iyo kuwa gaarka munaasabada ciida awgeed cabsi ka taagan degmada Afgooye Xasan Sheekh oo sheegay in laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed iyo mid amni xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo geeriyooday iyo qorqor oo ka hadlay baarlamaanka Puntland oo u yeeray wasiirka dekadaha ee maamulkaasi doobadaareed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland oo weerar culus ku qaaday Dani wararka dibadda warka radio markab leecawa aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah masjid ku yaala daanta galbeed ee dhulka Falastiin oo sabab yaab leh loo gubay iyo maxkamad musuq ku heshay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha ayaad ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee radio markabley u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda markabley wayna ka hadaba wasiir Xamza ayaa sheegay in qasaaro nafeed ay ka dhalatay dabaylo ka dhacay xeebaha dalka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya mudane Xamza Saciid Xamze oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ay geysteen mowjado dabaylo wata oo ku dhuftay qeybo kamid ah xeebaha dalkeena Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in ay deegaano dhowr ah oo kamid ah xeebaha Soomaaliya ay duufaano xoogani ka jireen kuwaasi oo dooniyo badweynta ay kula qallimeen dadkii saarnaa taasi oo ay dabayluhu sababeen bishii 18 July xaruntan waxay bixisay digniino oo ku saabsan dabaylo nagu soo wajahneen iyo roobab badan لكن واحد أملا سددكي إن سن مرنا داود دين وحيابها عن شيء دينينا سوي حي كانين قصارون آد وفر بدن هدان كبلا ودينا عدويش دوفانت قصارها أي كانتي وحد عدي لحي لواتن كجولاي دون صارنا سجال يتوون قفوت أيا وحكود متي وحكود انت هالقف سدح قفوا وداوع لح قفولنا ولايه dabeelaha ku dhuftay hadana xeebta liido saddex dhalinyaro ayaa ku dhimad oo dabaal u tageen sidoo kale agaasimaha qaybta maareynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay jirto halis kale oo dhinaca badda isagoo oo xusay in ay digniin u dirayaan dadka ku nool deegaanada ay halistu ka jirto loona baahan yahay in laga digtoonaado isla markaana ay ka dalbanayaan bulshada in ay qaataan fariimaha digniinta ee wasaaradda waxaa la ogaaday oo dhacday in dabayshaasi ay meelihii aan sheegnay badankooda ay ku dhufatay iyo degmo hor leh oo degmooyin aan sheegin ah intaba oo yacni waan yareysanaynay meesha ay ku koobnaanayso waxaan u haysanay inay meelihii aan sheegnay ahayd laakiin way ka baahday degmooyin hor leh oo jowhar ay ka mid tahay oo aan sheegin way ku dhacday alxamdulilah khasaarihii ma badnayn guryo ayay dumisay يعني دوبرنا حوجا وحبي يشوحيل وجيستي جدي
laakiin waxaa ugu darnayd midii xeebaha ka dhacday xilligan waa badxiran xagaagu waa iska dabeelo badan yahay xagaagan kumaba sii jiro digniintii aan bixinay shacabka Soomaaliyeed waxay ahayd in ay u qaataan dhab inay tahay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa wado dadaalo lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed halista mowjadaha badda iyo roobka dabaylaha wata ee ka dhacaya qaybo kamid ah xeebaha dalka gaar ahaan shabeellada hoose iyo jubbooyinka qaarkood sidaasi darteedna looga baahan yahay in la qaato digniinaha ay bixinayso dawladda dhanka kaleetana qasaaro ayaa ka dhashay isku dhacyo dhaxmaray banaanbaxayaal iyo booliis wararka ka imaanayo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa ku waramaya in qasaaro uu ka dhashay rasaas ay ciidamada ilaalada saldhigga dhexe ee Garowe ku fureen dad shacab ah kadib markii ay isku dhaceen isku dhaca ayaa yimid kadib markii dad shacab ah oo banaanbax dhigayay kuwaasi oo ka cabanayay canshuur kordhin oo maamulku sameeyay qasaaraha ka dhashay rasaasta ciidamadu rideen ayaa lagu sheegay 3 qofood oo ay dhaawacyo soo gaareen ciidamada rasaasta ku furay dadkaasi shacabka ayaa ku guuleystay in ay markii dambe kala eriyaan dadkii banaanbaxayay oo ahaa shacab ganacsato u badan saraakiisha booliska Puntland ee magaalada Garowe ayaan wali wax war ah ka soo saarin isku dhacyadaasi maanta bartamaha magaalada ku dhaxmaray ciidanka iyo dadka shacabka taasi oo qasaaro dhaawacyo ah ay ka dhasheen dadkan ayaa si weyn uga soo horjeestay canshuur kordhin ay sheegeen in maamulku uu ku sameeyay taasi oo keentay in ay maanta dibadbaxyo sameeyaan inkastoo boolisku dhiciseeyay mid ka mid ah dadka degan Garowe ayaa nooga warbixiyay waxyaabihii dhacay hawl ka kacday barnaamij cashuuro iyo shatiyo iyo wax saas ah baani oo baarasadu ka bilaabatay inuu markay diktaas ku dhacday markuu isku dhacay aduu xabado iyo waxba dhacay inuu de hawshu uu cashuur bay ka kacday dad shacab iyo ciidan bay dhexmartay lagu kordhin dad awal shati hore loo siiyay oo shati haystay iyo qolo kale cashuur raadinaysay waa isku dhul ka yimid بعدي أدو قلبي أشوف هذه في خمسة سنوات وين تجين قلبي سنة يوم دارا ولا كتبوا تجين تأخذ وقت الأولاد مركي كبعدنا هو شيء وتكفى أكثر من شيء وبدأ قفنا الساعة خلا دقي بدأ يفصل أو يتبعني بالساعة خلا دقي أو شيء ولا حسابي مركي taasay u dhacday qalab bayna ku dhacday oo dad saddex haysta baa waxa dhacday qola cashuur loo soo diray waxa la yiri keena macad cashuurtaas warfati waan waaysan waqtigii la gaari marka walaal taas wax u dhicin dhacay siihayaha ra'iisul wasaaraha ayaa kormeeray dekada Muqdisho siihayaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay weeliyaan siihayaasha wasaaradaha dekadaha iyo maaliyadda ayaa maanta kormeeray dekada Muqdisho wuxuuna maamulka dekada faray in ay laba jibaaraan shaqooyinka ay qaranka u hayaan Mahdi ayaa kulan gaar ah la yeeshay wasiirka maaliyadda iyo maamulka dekada wuxuuna ka xog wareystay qaabka ay u shaqeyso dekada caqabadaha ka jira iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo tayeyn karo adeegyada ay dekadu u hayso shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo keeni kara musuqmaasuq iyo ku tagrifal hantida dadweyne mudane Mahdi ayaa ku booriyay madaxda iyo shaqaalaha ka howlgala dekada in ay ilaaliyaan mas'uuliyadda lagu aaminay maadaama dawladda Soomaaliya uu ka dhacay isbedel waxa uu xusay in aan la aqbali doonin in shakhsi gaar ah uu ku tagrifalo dhaqaalaha dawladda wuxuuna kula dardaarmay maamulka cusub in ay dardargeliyaan shaqooyinka muhiimka ah ee shacabka Soomaaliyeed u hayso dekada
beesha caalamka ayaa war ka soo saaray doorashooyinka iyo shirka dhuusamareeb war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa rajo looga muujiyey in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan ka soo kordhay Soomaaliya aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogal ah oo lagu gaaro doorashooyinka waqtigooda ku dhaca qoraalkan waxaa lagu xusay in arintii sabtidii toddobaadkan ka dhacday xarunta golaha shacabka aysan wiiqi doonin oo aanay carqaladayn doonin ajandaha dib u habaynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa laga gaaro arrimaha hortabinta u leh qaranka beesha caalamku waxay si joogto ah ugu baaqaysaa wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaaran looga gaaro noocyada doorasho ee sanadka 2021 sidoo kale waxay tilaabo muhiim ah ku tilmaameen go'aanadii ay madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku gaareen magaalada dhuusamareeb 22 bishan taasi oo ah tilaabo muhiim ah oo la qaaday si loo gaaro yoolka waxaan ka filaynaa madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray dhuusamareeb 22 luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirarka lagu sii ambaqaadayo arrimahaasi si la iskugu keeno dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada hoggaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ugu dambeyntii waxaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqso ah loo soo magacaabo xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga mid noqonayo guddiga farsamada waxayna diyaar u yihiin in ay fududeeyaan hawsha guddiga si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey taasi oo ka soo bilaabanaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb war saxaafadeedkan waxaa si wadajir ah u soo saaray dawladaha iyo ururada kala ah Austria, Belgium, Ingiriiska, Canada, Denmark, Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo qaramada midoobay. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa fasaxday shaqaalaha dawladda iyo kuwa gaarka ah munaasabada ciida awgeed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qoraal ay soo saartay ku sheegtay in la fasaxay dhammaan shaqaalaha dawladda iyo kuwa ka shaqeeya hay'adaha gaarka loo leeyahay munaasabada ciida Arafo oo ku aadan 31 maalinta Jimcada ee fooda nagu soo hayso wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ku wargelinaysaa dhammaan shaqaalaha hay'adaha dawladda iyo shaqaalaha hay'adaha gaarka ah loo leeyahay in ay tahay fasaxa ciida Arafo oo ku aadan maalinta Jimcaha ah 31 Julaayo maalmaha fasaxa waa Sabtida iyo Axadda ayaa lagu daray qoraalkan ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda ayaa ugu hambaliyay farxadda munaasabada ciida ee fooda nagu soo hayso bulshada Soomaaliyeed waxayna Allah uga baryeen in farxad ay ku ciidaan cabsi ayaa ka taagan degmada Afgooye saacadihii la soo dhaafay waxa bilowday cabsi xoogan oo soo wajahday dadka ku haray degmada Afgooye iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan kadib markii ay kordheen biyaha webiga Shabeelle oo horay ugu fatahay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada hoose nabadoon Ibrahim Kuulow Ahmed oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in biyaha webiga ay ku socdaan xawaaro sare waxaan ka cabsi qabnaa in ay ka dhashaan cudurro kadib
markii dhammaan adeegyadii caafimaadka ay biyaha qaateen waana dhibaatooyin nagu soo food leh hase ahaatee waxaan u baahannahay in nagala soo gaaro ayuu yidhi nabadoon Ibraahim Kuulow inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Afgooye ayaa laga barakacay kadib markii ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle waxaana socda gurmad ay sameynayaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maamulka gobolka iyo kan degmada oo wada qayladaan iyo gurmasi wax looga qabto xaaladda cakiran ee ka taagan gobolka Shabeellada Hoose dowladda Soomaaliyeed ayaa iyana dhankeeda ku biirtay gurmadka dadka ka barakacay Afgooye iyadoo lacag dhan 500,000 ama nus milyan ugu deeqday dadkaasi u baahan gurmadka degdega sidaan hore u sheegnay gargaarkan waa wajigii labaad runtii aan gaarsiinayno shacabkeenii Soomaaliyeed shacabka degmada Afgooye kuwii ay saameysay fatahaadii uu sameeyay webiga Shabeelle waxaana ka faa'iideysanayaa maalintii labaad 1,000 qoys oo kale waxaan ugu talagalnay dadka sida tooska ah ay u saameysay fatahaada guryahoodii biyaha ku jira waxaan u sameynay xaafad walba oo fatahaadan ay saameysay guddi odayaal ah oo maawdiin leh oo soo xula dadka rasmiga ah iyadoo ay maamulka degmadana ay kaalin weyn ay ka qaadanayaan sidaad arkaysaan dadkan waa dad weli guryahoodii ka maqan cid gurigeeda ku soo laabatay weli ma jirto waxay dulsaar ku yihiin dad kale Soomaaliyeed oo degmadan degan sababtan waxay tahay weli guryihii ayaa ku jira biyihii waad arkaysaan webiga weli biyo xoog leh ayuu wadaa waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan baaq u diro cid allaale ciddii diyaar u ah inay kaalin ka qaadato ama gargaarkan qayb ka noqoto inay soo gaaraan ay soo gaarsiiyaan shacabkan degmada Afgooye maamulka degmada iyo gobolkan waxay diyaar u yihiin inay ka kaalmeeyaan cid walbaba in dadka rasmiga ah ee ay fatahaadu saameysay inay gargaarka runtii ay gaarto Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay in laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed iyo mid amni gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka UPD madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay kulanka mas'uuliyiinta xisbiga ay uga arrinsanayeen arrimaha siyaasadda dalka mas'uuliyiintan ayaa ka dooday sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isla markaana looga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed ama amni shirka ayaa sidoo kale looga hadlay marxaladda kala guurka ah ee dalku marayo iyo sida ugu habboon ee dalka ay uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xilligeeda ku qabsoonta gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ah looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasiloon oo suuragelin kara wada tashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareynayo marxaladan kala guurka galmudugna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa geeriyooday iyo qorqor oo ka hadlay xildhibaan Axmed Sheekh Yuusuf Galti oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho xildhibaankan ayaa maalmihii la soo dhaafay ku jiray isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay gudoonka baarlamaanka galmudug ayaa xaqiijiyay geerida xildhibaanka waxaana sidoo kale tacsiyeeyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxaan tacsi tiraanya leh u direynaa qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariistay marxuum xildhibaan Axmed Sheekh Yuusuf Galti oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho marxuumku wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug ayuu yiri madaxweynaha galmudug
baarlamaanka Puntlandna waxay u yeereen wasiirka dekedaha ee maamulkaasi kulanka 27aad ee xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Puntland ayaa maanta ka furmay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ajandaha kulanka ayaa maanta waxa uu ahaa dhameystirka arrimaha xuduudaha Puntland gobolada Sool iyo Sanaag xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay isku raaceen in qodobka arrimaha xuduudaha Puntland gobolada Sool iyo Sanaag lagu daro qodobka la xisaabtanka xukuumadda dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ayaa isku raacay in ajandaha fadhiga bari uu noqdo dib u eegista heshiiska DP World baarlamaanka Puntland ayaa u yeeray wasiirka dekedaha Puntland si wax looga weydiiyo heshiiska DP World iyo xaaladda dekeda Boosaaso mudanayaal baa iyaguna shalay soo jeediyay inaan soo hormarino qodobkii biyan Port iyo DP World oo arintii dekeda Boosaaso aad looga dayranaya inuu qaadano ka mudanayaal waad ku soo wareejinayaa mudanayaasha codsigooda iyo annagaba oo ay noola muuqato inaan xisaabtankii aynaan maanta gudgeli karin in qodobka soo hormarsano yaa ogol inaan isla qaadano inaan qodobka DP World soo hormarsano mudanayaal kooramka fadhiya waa 35 mudane waa ogol diidma ma jirto aamusna waa hal mudane sidaas ayaynu ku gudagalaynaa qodobkeena ajantaha ee DP World dibeegista heshiiska DP World wasiirkii dekedaha inuu gala hor yimaado si aan waqti inooga lumin wasiirku inuu hor yimaado oo wixii su'aalaha iyo nagaga xidhan hawsha tan iyo wixii xoga ee ku saabsan dekeda iyo heshiiskaas inuu la wadaago uu hor yimaado golaha marka waxaan soo jeedinaynaa mudanayaal inaan isla qaadano inaan wasiirkii talabno aan u yeedhno kadibna waraaqdii loo qoro golahana hor yimaado berrito insha Allah milaakiin yaa ogol mudanayaal in markaa wasiirka aan u yeedhno kooramka waxaa fadhiya 36 ogol waa 36 ciddii iyo cid ka aamusteen markaa ma jirto saas uu dhammaan ku yahay waa maasantiin berrito subax 9 subaxnimo ayaan balamaynaa wasiirka insha Allah markaa yimaado sidaa daraaddeed mudanayaal waxay noo ballanaa berrito subax wasiirka ayaa bari hortagi doono golaha wakiilada maamulka Puntland si su'aalo looga weydiiyo arrimaha dekeda Boosaaso wali arrimaha Puntland ayaan ku guda jirnay dhoobadaareed ayaa weerar culus ku qaaday dani kadib mowqifkiisii khayre gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Puntland Cabdixakiin Maxamed Dhoobadaareed ayaa si adag uga falceliyay mowqifkii madaxweyne dani ee xilka qaadistii ra'iisul wasaare khayre Dhoobadaareed ayaa ugu horeyntii si adag u naqdiyay hadalka dani isagoo oona ku tilmaamay shakhsi gacan ku dhigla oo ku tuntay dastuurkii lagu soo doortay isla markaana uusan ka hadli karin xilka qaadista khayre gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa dani ku eedeeyay in uu weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka Puntland xilligii uu gudoomiyaha ka ahaa kuna laayay ciidamadii ilaalada ka ahaa Dhoobadaareed ayaa ku doodaya in uusan dani xaq u lahayn eedeynta mudanayaasha golaha shacabka oo uu sheegay inay sameeyeen ku tumasho dastuur maadaama qaab sharciga balmarsan xilka uga tuureen khayre waa sida uu hadalka u dhigay dani sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in dani uu lacag badan ku bixiyay xilligii uu xilka ka tuurayay wuxuuna yiri ninkan Siciid Cabdulaahi Dani ma ka hadli karaa baarlamaan xil cid ka qaaday ama baarlamaan cid xil ka xayuubiyay isaga oo gacan ku dhiigle ah bitabdi kelmadaas gacan ku dhiigle weeraray xaruntii baarlamaanka Puntland ee uu isagu maamulka madaxweynaha ka ahaa intuu weeraray kulayay ilaaladii joogtay oo dhiigoodii oo qoyan oo aan meydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $20,000 u qaybiyey yiri codaya
ilaa iyagu doonis ma lehe $30,000 intuu qaybiyey 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyey $20,000 xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mumadayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaan ah isagoo waxaa sameeyey oo gacan ku dhiiglahaasa oo sharci darro sameeyey kow weerar iyo dil gacan ku dhiignimo ah haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $20,000 ku bixiyey inuu guddoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyey wax habraaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii guddoomiyenimada dhoobo dastuurna aan loo marinin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jebiyey ama habraac baan la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhegihiisu ismaqlayn ilowshiye dhowaa maamulbaa miyaanu xisaabtamin miyaanu wuxuu ku hadlayo waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cud ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay soomaalidu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii loogaa sameeyey oo maanta ka hadlaya oo leh cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay Soomaaliyeed ama reer Puntland dani inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wada hadaladii horaan ku soo daray laakiin maanta uu buu ima qaanti furay waayo hadduu nin caqligiisu shaqaynayo ama caqli saliimi ku jiro ama wuxuun garanaya ama siyaasadda wuxuun ka fahamsan ama wuxuun inay ku soo noqonayaan miyuu ka hadlaa maanta xil okay miyuu ka hadli karaa xil cid laga qaaday isaga oo og ama uguba gacan dheeraa 6 December 2014 Cabdiwali Sheekh ninka ugu gacan dheer oo xagga hore soo fadhiya oo aan habraacna u marin wax kale u marin miyuu ka hadli karaa maanta xil laga qaaday ra'iisul wasaare waxaan leeyahay oo aan taa ku gabagabeynaya daniyow dhagahaaga iyo afkaagu hays maqleen ficilkaaga iyo qowlkaaguna hays waafaqeen mas-uuliyadduna sidaas maaha qofka ibnu aadanka ahi inuu ismaydho ama ismasaxo waxay tusinaysaa in mentally uu wax u qabo ayay tusinaysaa intaas ayaan kaga gudbayaa su-aashaas iyada ah okay deni shirkii meesha la yidhaahdo galmudug ama caasimadda dhuusamareeb la isugu tegey wax maslaxad Puntland ama wax ajanda ah oo ka turjumaya dalka uu leeyahay madaxweynaha ka ahay ama maamulka uu leeyahay madaxweynaha ka ahay ma la tegey mise tororagiyo wuxuu la tegey iyo doorasho inuu ka hadlo su-aashaa jawaabteedu waxay tahay waa maya lamuu tegin wax ajanda ah oo Puntland leedahay lamuu tegin xataa kuu ka hadlayey oo mucaaradayey oo baarlamaanku ansixiyey kama uu hadlin oo markuu Puntland joogay malaha halkaasoo xiliyo burburan ku leeyahay oo ka hadlayey xataa kama uu hadlin okay maslaxad kale Puntland kama uu hadlin tii taagnayd oo waliba maslaxadda ugu muhiimsan ahayd ee ardayda iyo waxbarashada ee taabanaysay Puntland arrimaheeda bulshada especially waxbarashada kama uu hadlin hadalkan ayaa ku soo aadayo xilli uu madaxweyne Dani sharci darro ku tilmaamay qaabkii ay xildhibaanada golaha shacabka xilka uga tuureen ra'iisul wasaare Khayre oo isaga markii dambe sheegay in uu iska casilay si looga baaqsado foodo siyaasadeed iyo qalalaase ka dhaca dalka dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda Markabley haatanna wararka dibadda masjid ku yaala daanta galbeed ee dhulka Falastiin ayaa sabab yaab leh loo gubay qayb ka mid ah masjid ku yaala daanta galbeed ayaa isniintii la gubay iyadoo oo mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen Israa'iiliyiin doonaya inay halkaasi degaan ka samaystaan wasaaradda
arrimaha diinta ee Falastiin iyo madaxa wadaxaajoodka Falastiin Saib Arakaad ayaa ku eedeeyay dadka Yahuuda ee deegaaminta doonaya in ay weerarkan ka dambeeyeen wasiirka tirsan dowladda Israa'iil ayaa fariin uu soo dhigay Twitterkiisa ku cambaareeyay weerarkan oo uu sheegay in dambiilayaal neceb Yahuuda abuurayaan isla markaana ay ka dambeeyeen falkaasi dabka lagu qabadsiiyay magaalada Albihra wuxuuna dalbaday in cadaaladda la horkeeno hase ahaatee wasiirka ayaan si cad u xusin kooxda deegaaminta doonaysa in ay ka dambeeyeen weerarka sargaal ka tirsan adeegyada gurmadka degdega ah ee Falastiin ayaa sheegay in qayb ka mid ah masjidka Albir la gubay kadib markii walxad dareere ah oo holcaya daaqada dhismaha laga soo dusiyay aroortii hore waxa uu sheegay in dadka degan agagaarka masjidka iyo dabdamiyaashu ay ku guuleysteen in ay dabka baqtiyaan iyadoo aaga lagu tukado salaada ee masjidka ay ka badbaaday waxyeello soo gaarta ugu dambeyntiina maxkamad musuqmaasuq ku heshay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia maxkamad ku taala dalka Malaysia ayaa dambiyo musuqmaasuq la xiriira ku heshay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Najib Razak oo waayahanba dacwadiisu socotay guddiga garsoorka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Najib oo lagu oogay ilaa 7 dacwadood lagu helay dhammaan waxaana ka mid ah in uu lunsaday lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar iyo hanti kale oo la xaday dacwad oogayaashu waxay sheegeen in intii uu xafiiska joogay ra'iisul wasaarahan oo ahayd intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa 2018 la waayay lacagtii ugu badneyd hanti badanna la musuqmaasuqay hadda waxa uu wajihi doonaa in ka badan 10 sano oo xariga hase ahaatee xabsiga uu hadda ku jiro waxa uu ku sii jiri doonaa ilaa maxkamaddu go'aan kama dambays ah ka gaarayso garsoore Maxamed Naslaan Al-Qasali waxa uu sheegay in waayihii xilka uu hayay ra'iisul wasaaraha dambiga lagu helay uu koontooyin gaar ah ku shubtay lacag gaaraysa 42 milyan oo lacagta Malaysia una dhiganta 10 milyan oo dollar dhageystayaal warkii oo aad kala socoteen idaacadda Markabley caawa waa naga inta warka waxaan la socodsiinayay anigoo Yaxya Cabdirisaaq Soofe tani intaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah